5 calaamado khafiif ah oo isgaarsiin sun ah iyo sida loola tacaalo. Calaamadaha isgaadhsiinta sunta ah iyo sida loola macaamilo. Maalmahan, waxaan si joogto ah ula xiriiraynaa wicitaanada, fariimaha, inta lagu jiro shirarka iyo guriga. Laakiin sababtoo ah in aan wax badan ku hadalno macnaheedu maaha in la maqlay ama la fahmay. Qaar ka mid ah wadahadallada waxyeellada leh kuma jiraan qaylo ama doodo waaweyn. Waxay ku dhacaan aamusnaan, caadooyin yaryar oo inta badan aan la dareemin. Waqti kadib, qaababkani waxay naga dhigi karaan inaan dareemo in la iska indhatiray, la fahmi waayey ama xitaa ixtiraam la'aan. Isgaarsiinta suntu mar walba ma muuqato. Waxaa laga yaabaa inay noqoto qof dareenkaaga iska cadaya ama samaynaya sheeko kasta oo naftiisa ku saabsan. Xitaa haddii kuwani u muuqdaan waxyaabo yaryar, waxay si tartiib ah u dhaawaci karaan saaxiibtinimada, xiriirka ama xiriirka shaqada. Halkan waxaa ah 5 calaamadood oo hore oo ah isgaarsiin aan caafimaad qabin iyo siyaabo fudud oo wax looga qabto iyaga oo aan abuurin xiisad dheeraad ah. Run ahaantii ma dhegaystaan, way ka fal celiyaan. Waxaad isku daydaa inaad hadasho, laakiin way ku gooyeen ama ku jawaabeen iyagoon run ahaantii ku maqlin. Uma muuqdaan kuwa danaynaya aragtidaada, dareenkaagana badanaa lama dareemo. Xidhiidhka dhabta ahi maaha kaliya maqalka ereyada waxa ay ku saabsan tahay in si dhab ah loo fiirsado. Taas la'aanteed, way adag tahay in la dareemo. Isku day inaad tiraahdo, waan u mahad celin lahaa haddii aan labadeenuba qaadan karno daqiiqad si aan dhab ahaan isu dhegaysanno ka hor inta aanan jawaabin. Sheekadu mar walba iyaga ayay ku soo noqotaa. Markaad rabto inaad wax wadaagto, waxay si dhaqso ah ula wareegaan ama u beddelaan diiradda naftooda iyaga oo aan ogayn. Sheekooyinkan hal dhinac ah, fikradahaagu weligood uma muuqdaan kuwa muhiim ah. Waqti kadib, tani waxay kaa tagi kartaa inaad dareento in la ilduufay ama aan la arki karin. Waxaad odhan kartaa, waxaan jeclaan lahaa inaan wax wadaago, sidoo kale, ma ka hadli karnaa taas in yar? Weerarada gaarka ah waxay beddelaan doodaha dhabta ah. Marka khilaaf jiro, waxay u boodaan inay dhaleeceeyaan codkaaga, dabeecadaada ama ujeedooyinkaaga, halkii ay diiradda saari lahaayeen arrinta lafteeda. Waxaa noqon kara dood fudud ayaa si lama filaan ah u dareema shakhsi ahaan iyo dhaawac. Wadahadallada caafimaadka qaba waxay u baneeyaan meel bannaan oo loogu talagalay aragtiyo kala duwan. Hadallada shakhsi ahaaneed waxay keenaan fogaan shucuureed oo kaliya. Isteji oo dheh, kuma weerarayo, kaliya waxaan qabaa fikrad ka duwan. Haddii ay sii socoto, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dejiso xuduud cad oo ku saabsan isgaarsiinta ixtiraamka leh. Waxay kaa dhigayaan inaad dareento dambiile. Inta badan waxaad dareemaysaa inaad mas'uul ka tahay shucuurtooda, xitaa marka aadan samaynin wax qalad ah. Waxaa laga yaabaa inay dhahaan, weligaa i fahmin, ama mar walba waxaad i dareensiisaa xumaan, taasoo kaa dhigaysa inaad dambiile tahay kaliya daacadnimo. Tani waxay kaa xidhi kartaa oo waxay kaa niyad jebin kartaa inaad hadasho. Si naxariis leh laakiin si adag u dheh, waan fahamsanahay inaad xanaaqsan tahay, waanan danaynayaa, laakiin sidoo kale waxaan u baahanahay inaan awoodo inaan maskaxdayda ku hadlo anigoon dambiile dareemin. Mawduucyada halista ah had iyo jeer waa la iska ilaaliyaa. Mar kasta oo arrin muhiim ahi soo baxdo, waxay si dhaqso ah u beddelaan mawduuca ama xidhaan wadahadalka. Waxay u ekaan kartaa inay isku dayayaan inay nabadda ilaaliyaan, laakiin ka fogaanshaha wadahadalladan marnaba ma xaliyaan wax, kaliya waxay u oggolaataa dhibaatooyinka inay ka koraan asalka. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo, waan ogahay in tani aysan fududayn in laga hadlo, laakiin ka fogaanshiyaha ma caawinayso. Ma ka wada shaqayn karnaa tan, xitaa haddii aan si tartiib ah u qaadanno?